bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan oo aad ku soo saqdaan barnaamijyadeena halkan waa channelkeenu ku leenahay YouTube-ka ee tubta wararka qodobada ugu waaweyn ee aan daawadayaal saaxiibayaal idinku soo gudbi doonana barnaamijyadeedkan idinku soo maqana waxaa ka mid noqonaya ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ayaa ka hadlay dagaalka culus ee ka dhex oogan Ukraine iyo sidoo kale Ruushka waxa uu sheegay in uusan marnaba ka leexleexanayn taageerada uu fidinayo Ukraine waxa uu sheegay in mar dhow laga adkaan doono Ruushka isla markaana la soo afjari doono dagaalka uu ku qaaday dalka Ukraine hadalkan ma yahay mid farxad gelinaya Volodymyr Zelensky hogaamiyaha dalka Ukraine Putin hadalkan waxa uu ka soo saaray jawaab caro leh oo ka yaabisay dhammaan reer galbeedka oo idil hadaba Mareykanka ayaa iminka waxa uu ka fiirsanaya taageerada uu fidinayo Ukraine waxa markaasi hakad geli kara hub culus oo reer galbeedku ay u ballan qaadeen Ukraine kadib hadalkan ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Boris Johnson Putin hogaamiyaha dalka Ruushka waxa uu ku dhawaaqay tallaabo culus oo uu ka qaadayo reer galbeedka iyo NATO kuwaas oo u fidinaya gargaar Ukraine hadaba wadamo qaar ayaaba iminka waxa ay la laabteen taageeradoodii kadib markii ay ka cabsadeen warkan naxdinta geliyay dalalkooda ee ka soo yeeray hogaamiyaha dalka Ruushka Vladimir Putin soo dhawaada daawadayaal saaxiibayaal waa isla faaqidi doonaa halkan ayaan idinku soo gudbi doonaa muuqaalkan like si share garay daawada inagu soo biir subscribe inoo saar channelka Faragan Balaalka si durbadiiba ay ku soo gaaraan muuqaalada inuu halkan idinku soo gudbino waa ku maasantahay daawada la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba qaybta hoose ee faalada lagu gudbiya commentiga ayaa inoogu reebi karaysa aragtidaada saliimka markaana daawada waxaad ku soo dhawaataa faaqidaada qodobadii aynu soo dulmarnay hogaamiyaasha reer galbeedka ayaa ku xifaaltamaya dagaalka culus ee ka dhex ogan Ukraine iyo sidoo kale Ruushka Ukraine ayaa mar walba waxa ay tahay mid u gacan hoorsanaysa reer galbeedka oo hub weydiisanaysa si ay isaga difaacdo oo ay isaga caabiso dagaalka ba'an ee qaraar ee Ruushka uu ku hayo magaalooyinkeeda reer galbeedku waxa ay wacad ku mareen oo ay ku dhaarteen in ay garab istaagi doonaan Ukraine ilaa ay markaasi kaga guuleystaan oo ay kaga itaaroonadaan dagaalka ciidamada Ruushka ee ku soo duulay hadaba reer galbeedka taageeraya Ukraine waxa ugu madax fiiqan isla markaana ugu madax dhooban madaxweynaha dalka Mareykanka ninka lagu magacaabo Joe Biden hadaba dagaalkan Ukraine iyo sidoo kale Ruushka u dhaxeeya waxa uu markaasiba geesanaya qasaarooyin aad u culus oo markaasi aan laga sheekeyn karin waxaana dagaalku uu yahay markan mid markaasi sii holcaya ama sii siyaadaya maadaama reer galbeedku ay hub ku sii daabulayaan magaalooyinka ku yaala dalkaasi Ukraine hogaamiyaha dalkaasi Ukraine Volodymyr Zelensky uu iminka qaadayo dhiirigelin ku aadan sii wadida dagaalka maadaama uu helayo hub fara badan oo kaga imaanaya reer galbeedka iyo sidoo kale NATO dagaalkan Ukraine iyo sidoo kale Ruushka u dhaxeeya hadii uu sii siyaado oo uu sii kordho waxa uu sababi doonaa dhaqaalaha caalamka oo idil dagaalka saddexaad ee dunida ayaana dhici kara ay leeyihiin falaqayaasha qaar iyo sidoo kale qaar ka mid ah reer galbeedka oo ayagu taageeraya Ukraine hogaamiyaha dalka markaas Ingiriiska ama ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska ama UK Boris Johnson ayaa waxa uu maanta ka hadlay dagaalka culus ee ka dhex oogan labadan wadan ee Ukraine iyo sidoo kale Ruushka waxaan hadda markaasi ka maqalnay ra'iisul wasaaraha UK Boris Johnson oo hadlayay kadib markii uu ka soo laabtay booqasho la yaab leh uu ku tagay Kiev hadalka laga maqlay ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ayaa waxa uu ku aadanaa in uu taageero badan u fidinayo ciidamada markaasi Ukraine ee weerarka lagu soo qaaday ama duulaanka lagu yahay waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in Britain ay sii wado in ay muujiso in ay taageerto Ukraine isagoo ka digay qatarta dagaalka ee ka dhacaya adduunka oo dhan marka dagaalku uu sii dheeraado ama uu sii fido Ruushka waxa ay hore u shiidayaan inchi by inchi waxaana muhiim noo ah in aan muujino waxa aan ognahay in markaasi in ay run yihiin taas oo ah in Ukraine ay guuleysan karto oo ay guuleysan doonto Boris Johnson ayaa u sheegay suxufiyiinta ama warfidiyeenada ama saxaafadda marka dagaalka Ukraine uu soo galo ama uu soo galo dunida oo idil aad bay muhiim u tahay in la muujiyo in aan la joogno iyaga muddada dheer
waxaana siinaynaa dib u soo kabasho istiraatiiji ah oo ay u baahan yihiin. Boris Johnson ayaa sidaas yidhi. Waxay noqon lahayd musiibo haddii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu awood u yeelan lahaa in uu sugo ammaanka magaalooyinka koonfurta Ukraine iyo Donbass, ayuu sii raaciyay hadalkiisa. Ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Boris Johnson ayaa sidoo kale sheegay in uu doonayo in uu caddeeyo in UK ay ku taageerto Ukraine hamigooda ah in ay Ruushka ka saaraan wax walba oo Putin uu helay tan iyo 24 Febraayo sanadkan 2022. hadalkan ka soo yeeray madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Boris Johnson ayaa waxa uu farxad geliyay qaar ka mid ah reer galbeedka, waxaana iminkaba ay yihiin kuwa dhiirigelin ka helay hadalkan oo hubka ku sii daabuli kara magaalooyinka waaweyn ee istiraatiijiga ah ee ku yaala dalka Ukraine ee weerarka lagu soo qaaday. dhanka kale hadalkan waxa uu ka careysiiyay hogaamiyaha dalka Ruushka Vladimir Putin. Putin ayaa sheegay in reer galbeedku ay la kulmi doonaan tallaabo ka dhan ah Ruushka, waxa uuna tibaaxay in uu ka qaadayo arrimo fara badan oo ayaga dhibaato ku ah. haddaba dagaalkan Ukraine iyo sidoo kale Ruushka u dhaxeeya horaan markii uu bilaabanayo Ruushka waxaa lagu soo rogay cunaqabateen, laakiin hogaamiyahooda Putin waxa uu tibaaxay in cunaqabateentaasi ay tahay mid aanan waxba ka tarin ciidamada dalka Ukraine iyo sidoo kale dalkiisa oo uu isaga hogaamiyo. cunaqabateenta ayaa waxay noqotay mid isdaba taal oo waxa mar walba reer galbeedku ay cunaqabateen ku soo rogayeen dalka Ruushka oo dulaankani ku qaaday 24 Febraayo magaalooyinka ku yaala dalka Ukraine. haddii cunaqabateenta la soo rogay, Putin waxa uu go'aansaday in markaasi maalgashadayaasha markaasi u dhashay dalka Ruushka in ay maalgashadaan dalkooda si looga feejignaado amaba si looga badbaado khatarta ay leedahay cunaqabateenta lagu soo rogay. haddaba daawadayaal, waxaa markaasiba sidoo kale la isweydiinayaa qaabka ay Ruushka uga dabaalan karaan cunaqabateeno kale oo ay reer galbeedku iminka damacsan yihiin in ay ku soo rogaan. Mareykanka iyo sidoo kaleba wadamo kale oo uu Faransiiska iyo sidoo kaleba Jarmalka Talyaaniga ka mid yahay ayaa waxa ay damacsan yihiin markan in ay cunaqabateenta sii kordhiyaan oo ay sii siyaadiyaan ilaa ay markaasiba Ruushka oo markaasi sameeyo wax ayaga markaasiba wax u dhimi kara. dadka xogta ka soo gudbiya dagaalka Ukraine iyo sidoo kaleba Ruushka ayaa tibaaxaya in xaaladda aysan sahlanayn, iminkana la doonayo in la sameeyo wax walba oo lagu fududeyn karo joojinta ama hakinta dagaalkan u dhaxeeya labadan wadan ee Ukraine iyo sidoo kaleba Ruushka. saxaafadda ayaa waxa ay mar walba soo bandhigtaa xogo iyo macluumaad la xiriira dagaalka Ukraine iyo sidoo kaleba Ruushka. Mareykanka iyo sidoo kaleba wadamo kale ayaa iminka ku sii madax adeegaya sii socashada dagaalka Ukraine ay taageerayaan. Mareykankana waxa uu ka soo horjeedaa Putin iyo sidoo kaleba xulafadiisa. wixii warar oo daawadayaal ku soo kordha barnaamijyadeena xiga ayaa ku daawan doontaan, halkaas ayaan idinku soo gudbi doonaa. muuqaalkan la garay si share garay daawadayna ugu soo biir subscribe inoo saar channelka Faragan Baraalka si durbadiiba ay ku soo gaaraan muuqaaladaynu halkan idinku soo gudbino. waa ku mahadsantahay daawadayla la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba. qaybta hoose ee faalada lagu gudbiya commentiga aragtidaada saliimka inoogu reeb. tan iyo barnaamijkan kiisa kalena daawadayaal saaxiibayaal intaynu dib isugu kulmi doono nabadgelyo.